السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبره إذن سو قد بنشري برشادة أفكاغا هويو إساقو إذن كسو قد بيا شاشادة سي أدوغا فائدة ستان أفكينا هويو تاسو waxa idin soo gudbiso rugta barashada afkaaga hooyo jinaal kaasaad waxaad wala soconaysaan si joogto ah casharada la soo gelinayo oo ah sidii aad u baran lahayd afkaaga hooyo waxaynu soo qaadanay alifbeetadii iyo isku xirkeedii iyo ereyadeedii iyo erey bixinteedii iyo macaahigadeedii haddana waxaynu bilaabeynaa caawa oo aynu qaadanaynaa cashar ka ugu horeeya ee naxwaha afka Soomaaliga naxwuhu macna ahaan waa grammarka Englishka oo kale ama naxwaha Carabiga oo kale waa qawaacida loo isticmaalo hadalka kuwaas oo ah kuwa u sameeya dhadhanka iyo macnaha hadalka lagu hadlayo marka afkeeni la qoray waxa loo sameeyay erey bixintii iyo xuruuftii loo isticmaalayo astaanta u ahayd erey kasta wax kasto afkeena ka soo baxa waxa loo baahday in la helo qawaacid loo isticmaalo hadalka si uu u yeesho macna iyo dhadhan uuna u noqdo wax qormaya sida luqadaha kaleba ay leeyihiin marka waxa loo saaray guddi toddoba ah oo gudoomiye ku xigeen iyo xog haye iyo xog hayn baan leeyahay iyo xubno iyaguna qayb ka ah guddidaas oo toddobada ah oo madax u ahaa Cabdullaahi Xaaji Maxamuud insaaniye la oran jiray waa Cabdullaahi Xaaji Maxamuud oo gudoomiyihiya waxaa weheliya Umar aw Nuux Maxamed oo gudoomiye ku xigeen Umar Maxamuud Umar aw Nuux Maxamuud Umar aw Nuux أو نوح أو قدومية كوحيجان حقهاينتا أو أحمد عرتان أحمد عرتان حانج oo ahaasna xog hayn waxa Xuseen Sheekh Ahmed Kadare oo xubina isaguna Muuse Xaaji Jaamac Galaal وصنع حبنا محمد شريف محمد شريف محمد وصنع حبنا شريف جامع أحمد شريف جامع أحمد وصنع حبنا تدبدا أيا وحي هايين جددي لو صاري عبد الله حاجي محمود oo ahaa gudoomiye oo ninka u sareeya Umar aw Nuux oo isaguna ahaa
gudoomiye ku-xigeen Axmed Cartan Xange oo isaguna ahaa xoghayn Xuseen Shire Axmed oo isaguna ahaa kadare lagu naanaysi jiray oo isaguna ahaa xubin kamida xubnaha Muuse Xaaji Jaamac Galaal oo isna xubin ahaa iyo Maxamed Shire Maxamed oo isaguna xubin ahaa Shire Jaamac Axmed oo xubin ahaa todobada nin baa luqadda ama naxwaha afka Soomaaliga guddi isku soo dubariday ahaa oo isku habaysay kana dhigtay sida uu hadda u qoran yahay marka waxaynu bilaabaneynaa habka luqadeena iyo waxa ay tahay iyo inta ay u qaybsanto ayaynu bilaabaneynaa oo ah casharkeena koobaad marka aynu bilaabayno casharkeena koobaad wuxuu ka bilaabeena oo afkeenu uu koow ah in laga bilaabo in afkeenu yahay hadii Ilaahay dankeeda leeyahay waxaanu ka bilaabeena cod ama codad koow codad bakan taytalku waa codad codadka codku waa dhawaaqa afka ka soo baxa ayaa cod la dhahaa marka codad la yiraahdo waxa la yiri codadka ama dhawaaqa codadka ama dhawaaqa ama dhawaaqa waxay u kala baxaan laba jaad ama nooc kuwaas oo kala ah كو شغله كواسو شغله
R R إذا تصال أهانوية إذا والله ما ده ابو اي ال اي ال او والله أر أو والله أود أو والله أول أو والله أور وعاوه لسه marka codadka ama dhawaaqa afkeenu waxay u kala baxaan laba jaad ama laba nooc kuwaas oo kala ah shaqalo iyo shibane ayay u kala baxaan marka waxaynu qaadanaynaa shaqalada horta labada jaad midna waa shibane midna waa shaqal marka shaqalku waa kan dhawaaqa sameeya shibanuhu wuxuu dhisaa hadalka laakiin waa qolofkii ku dahaarnaa laakiin waxa la isticmaalaya oo dhawaaqa ku sameeynaya waa shaqalka ama ha dheeraado ama ha gaabnaade marka waxaan soo qaadanaynaa shaqalka isagoo far waaweyn a oo la mid ah tusaale ahaan af a oo la mid ah ar edeg edeg ebo il o or od ul marka ushu waa tan la isla dhaco macna ahaan uurkuna waa kan ay dumarku ama xaamilada noqdaan xayawaanku dhadiga ah ay qaadaan ilmaha ayaa uur la dhahaa afkuna waa kan lagu hadlo aarkuna waa libaaxa kiisa labka ah ayaa aar la dhahaa af Soomaaliga aar lagu dhahaa edeg waa meesha lagu xereeyo xayawaanka yaryar la dhaqdo ariga geela looda wax kastaba ha ahaadeen kuwooda yaryar baa meesha lagu xereeyo edeg la dhahaa ambujana waa la dhahaa qalwana waa la dhahaa qabna waa la dhahaa iyaga magacyo badan leh ebo waxay noqotaa
eebo waa hadal utuun reeba waranka falaarta dad wax lagu rido oo qaansada lagu xiro taasna waa la yiraahdaa eebo oo macnaheedu yahay marka hadalka loo isticmaalayo dhibaatada ay eebadu leedahay hadalka reeba oo kale ama hibashada reeba ama gocashada ayaa waxa la yiraahdaa eebo il waatan in wax ku aragno iyadana marka ilna waa meesha dadka maydka la dhigo marka la qodo qabriga meesha hoose ugu hooseysa ugu hooseyso la dhigo ayaa la dhahaa il waa dhawaaq waa nagu oriyeen waa dhawaaq qayla ah ood waa tan xoolaha lagu oodo ul waa tan lala dhaco wax oo sida luuca carabiga casa lagu dhaho uurna waa xaamilo ama wax la mida haddii ilaahay raali ka dhigo halka ayaa casharkaasu inoo joogaya